adeega mobilka oo ah mid faa'iido u leh bulshada iskulana xiriiran ayaa dhanka kale waxa barbar socda dhibaatooyin dad badan aysan ku baraarugsanayn warbixintan waxaynu ku eegi doonaa qayb ka mid ah dhibaatooyinkii aynu soo aruurinay ee laga dhaxlay mobilka وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا masaajidka waa guriga Allah oo adoomadiisa rumaysani ay ku cibaadaystaan waa marka cibaado loo tago balse dad badan ayaa qalad ku dhaca xilliyada ay ku sugan yihiin masaajidda dadka qaar ayaa ku sheekaysta masaajidda iyagoo isticmaalaya mobilka gacan qaadka aad ayay kor ugu hadlaan waxaana ay saameeysaa dadka dukanaya iyo kuwa quraanka akhrisanaya marka salaada lagu guda jiro waxa dadka carqaladeynaya in teleefoonaadka soo dhacaya iyadoona ay dhacdo in dad badani ay salaada ka waswaasaan taasi oo loo aaneynayo teleefoonaadka gacanta oo codad kala duwan ku soo dhacaya waqtiga lagu guda jiro salaada inta aan salaada la galin ka hor ayay imaamyadu amraan in teleefoonaadka la iska damiyo ama la iska baqtiyo laakiin dadka qaar ayaa aan kuwa aan fulinin amarkaasi halka kuwa kalena ay masaajidka yimaadaan inta lagu guda jiro salaada qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed oo la kulmay ayaa ka hadlay dhibaatooyinka uu teleefoonku ku hayo iyagoona sheegay in uu saameyn ku yeesho amaba uu mashquuliyo codka teleefoonka soo dhacaya shada muslimiinta mobiladoodii xilli walba horta imaamiyada waxay ku baaqaan marka salaada lagu jiro in mobilada la iska damiyo saas ay tahay waa la iska iloobaa in badanna saameyn bay ku yeelataa salaada dadka muslimiinta ay dukanayaan salaada la dukanayo aad bay u saameysaa waayo bulshada muslimiinta cibaado u yimaadeen masaajida marka lagu cibaadaysanayo salaadii aad inoogu mashquuliyaan imaamkana way mashquuliyaan marka xilli walba la dukanayo dadka ummadda waxaan leenahay walaalaheeni mobilada dhib bay ku hayaan dadka dukanaya ee walaalahoodii muslimiinta ah xilli walbana imaamku markuu ku baaqayana in la damiyo ayuu ku baaqaa saas ay tahayna waa la ilooba hatta xigiliyaan insha Allah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iya dagihi wax maqla ayaa waansamo maalinka masaajidka istaagay ama sheekh istaagayba kadib uu yimid teleefanka qaylo dheer ugu xiran waswaas fara badan buu ku abuuray lamada control kara qalabkaas in loo helo muhiim ah waxaan ku dardaarminaa sidii qalabkaas walaalaha ay ugu dadaali lahaayeen in falankeeda la galo waa iska dhibadeen dad badan oo meel duur laga joogo in iska joogan laga yaabo xilliyada salaada kugu soo gaadayo oo soo wacayo dhibkan waswaaska ana waa iska jiray laakiin masjidada waxaan dhihilaan qalabkaas in loogu dardaarmo sidoo kale arintan ayaa waxaan kala hadlay imaamyada masaajidda waxa ayna sheegeen in ay dhibaato ku qabaan teleefoonada waqtiga yar ee Allah la hortaagan yahay adoomadiisuna ay gudanayaan waajibaadka salaada imaamyada qaar ayaa sheegaya in ay dhacdo iyaga oo ku guda jira salaadaha la jahro in gadaashooda ka dhaco mobil duco ama nashiido ku soo dhacaya taasoo mararka qaar keenta in imaamku aamuso isagoo u maleynaya qof u saxaya aayad uu gafay imaamka ahay masjidul huda waxaan amarnaa inta salaada markii loo soo istaago oo uu aqimo muadinku oo imaamku uu mikrofoonka qabsado dadka wuxuu amraa inay safka simaan telefoonada ay iska damiyaan wixii wax u dhimayo ama salaadooda khalal gelinayo dhan ay ka taxadaraan meelaha bambanaanka ay buuxiyaan telefoonka kolba bini aadanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku si kama dhigin qaar baraarugsan oo qaata waa jiraan qaar aan qaadana waa jiraan waxa dhacay oo hadda taagan baa waxay tahay markuu imaamku salaada akhrinayo khaasatan salaada oo jahriyada ah telefoonada qaar waxay ku soo dhacaan muusika qaar waxay ku soo dhacaan nasiidooyin ama quraan ducooyinkaas markay soo dhacaan oo kale waxaad moodaysaa in gadaashaada quraanka aad gaftay oo gadaashaada uu nin ka shanqarahay oo quraankii ku toosinay waxa dhacaysa marka inaad intaad aamusto adiga aad wasaasto wax kula hadlayna aad weydo oo telefoon markaas aad ogaato ka dambe inuu wax dhacaya telefoon markaas ma aayad meesha ka soo waato ama adiga oo intaad bagafto aayadii siiqadii kugu socotay ilaa gadaalba wax kaaga shanqareen wixii codkii nasiido ku soo dhacay ama wuxuu ku soo dhacay duco ku soo dhacay waxaad moodaa qof marka nin oo gadaalka la hadlay oo aayadii waa khaladay ku toosin hayo taasoo kala dhacday oo in badan dhacdo soo noqotay waxa dhacday kale muusikada markuu waxa ka qeyliyo qofkii inuu muxuu asaga laftiisi wuxuu akhriyay uu aqoon waayo iyo wuxuu tukadayba maalmahan waliba hadda way u badan tahay aad ay ugu badan tahay oo muxuu ahaa muusikada qaybta laha aad ugu badan dadka miyi ka yimid oo kale taa markay soo galaan masjidkii ba telefoonadooda isagoo silentna saarnayn amarkina aan baqaadan hadda waxa la sheegay waxta aad ba aan u dhugsanin ba geeskaasna ka dhacaya
dhacaya kana ka dhacaya waxa laga yaabaa inaad bala socon bixitaa imaamkii iyo wuxuu tukaday iyo ragcadiisii haddaad imaamtayna sidoo kale inta ragcaday ka khaldamaan xageebaad maraysa ilaa xaggana waa ka dhacay xagga wixina dami ma dhihi kartid oo lama hadli kartid hada marka salaadii ku jirtaa amar ma bixin kartid aad iyo aad buu u shabahaya waliba meel oo suuq oo dadku wax ku kala iibsanayaan oo qof walba telefoonkiisa dirsanaya oo soo dhacayo oo la hadlayo iyo asagii wax badan oo farqi ah oo ma dhaxaynayaan ayay meeshan waxa lagu talagalay salaadii in lagu khushuuco ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay الذين هم في صلاتهم خاشعون markuu dadka muuminiinta amaanay qad aflaha almu'minuun alladina hum fi salatihim khashi'un salaadi marka haduu mobile dhaco si kastood ahayd wad ugu waswaasisa khushuucaas waxba ka dhiman salaadi hadii khushuuc laan noqotana waa kii nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiiska Abu Hurayra uu ku yiri muxuu ahaa ninkii musii salaad oo Khalid ibn Rafi' la dhihi jiray oo ku yiri markuu salaada uu istaagay oo tukado nabiga salaamo u yimid wuxuu ku yiri farji fasalli fa innaka lam tusalli kun qumi salaadi oo tuko ma aadan tukan bi salaadi maxaa yeelay khushuuci baa ka maqnaa dumaaniinadii oo dhan baa maqnay maraday dumaaniinadu tagtana hadii meeshii waxa salaadii oo dhan baa baadii inaadan tukanin baa hadiisku cadeynaya hadiis Abu Hurayra meeshii marka waxay noqonaysaa meel suuqi aan wax badan ka bedelin masjidka taas ay noqonaysaa telefoonka sababtiis iyo dhicitaankiisa ama muusiga ku dhaco ama nashidaha ku dhaco ama ducaha ku dhaco kulligiis waa waay ilaahay baa la hor taagan yahay inaysan wax kale soo dhaxgelin